kulankani ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka ee beesha Gaaljecel oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa waxa ay kaga hadlayeen xubinimada wasiirnimo ee la siiyay xubin kamid ah beesha Gaaljecel taasi ay sheegeen in ay kalsoonida kala laabteen xildhibaano ka tirsan beesha Gaaljecel waxa uu kulankani ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe odayaasha ayaa sheegay in la duudsiyay lagana baxay heshiiskii ay wada gaareen beesha taasi oo ay sheegeen xubinimada baarlamaanka iyo waliba xubinimada wasiirnimo oo ay horey u qaybsadeen hal jilib oo kaliya ay isugu qaateen labada dhinac dhanka xubinimada wasiirnimada iyo waliba baarlamaanka waxaan aad weyn aan ka tirsanaynaa xildhibaanada Gaaljecel anagoo mataqaanaa xuquuqdii aan lahayn oo haddaan ka hor iyagu ay cadeeyeen oo qoraal ay ku bixiyeen in aan ximitaas anaga aan xaq u leenahay ay haddana maanta ku tunteen anaga saacadan wixii ka dambeey mana matalayin mana matali doonaan kalsoonidiin u hayneen waa kala noqonay taas waa isku tashanayna war ma isku ognahay taas anaga waxaan qaadan xildhibaanada beesha Gaaljecel anaga xuminteena waa inay noo daayaan hadii noo daawaan kalsoonida aan kala laabanaa أنا سيدا أقولنا هاي قبلها بيش علوفي وحن رأسنا هاي أودياش بيش علوفي وحكوا عنك سوجيدين وان كل خاطينا nabadoonadan oo ay kamid ahaayeen nabadoon Cabdiqani Sheekh Maxamed Xaaji nabadoon Maxamed Culo Barow iyo nabadoon Umar Cabdulle Faarax ayaa sheegay in xildhibaanada ka soo jeeda beesha ay ku dhaliilayaan balan ay sheegeen in dhanka awood qaybsiga ee beesha isaga baxeen kulankani kadib ayaa waxa ay beesha Caloofi soo saartay war murtiyeed ka kooban laba qodob waxaana uu akhriyay nabadoon Cabdiqani Sheekh Maxamed Xaaji maanta ay qabteen ayaa waxa loogu soo horjeeda cadaalad darro aan ka tirsanayno xildhibaanada beesha Gaaljecel waxaana cadaalad darradaas ay tahay sida dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ku dhisan tahay awood qaybsi beeleed beel walba gudaheeda waxaa ka jira mid la mid ah awood qaybsiga oo ay lagama maarmaan tahay in ay isku tixgeliyaan marka la qaybsanayo jawooyinka siyaasadeed sidaas daraadeed waxaa hore loogu heshiiyay dhismihii dowladda federaalka maadaama beesha Caloofi aysan helin xubin baarlamaan ayaa isla markaana ay tahay beel weyn oo wada degta dhammaan gobolada ay beesha Gaaljecel degto in aan lagu faragelin xilka wasiirnimo waxaana taa daliil u ah labadii wasiir ee isku xigay inta ay jirto dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ka soo jeedaan beesha Caloofi xildhibaanada iyo dhammaan dhaqankii matalayay beesha Gaaljecel si wada jir ay u saxiixeen go'aankaas waxaana si dhab ah loogu gudbiyay madaxda sare ee qaranka labo xildhibaanada beesha Gaaljecel waxay si ula kac ah u buriyeen wixii hore loogu heshiiyay oo ahaa in xilka wasiirnimo loo daayo beesha Caloofi taasina waxay dhaawacaysaa midnimada beesha Gaaljecel madaxda dowladda federaalka Soomaaliya sida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka waxaan u soo gudbinaynaa cabashada aan ka cabanayno cadaalad darrada iyo ballanka baxyada ay nagu sameeyeen xildhibaanada beesha Gaaljecel waxaan halkan ku cadeynaynaa in aysan matelin xubnaha baarlamaanka ugu jira beesha Gaaljecel ee shanta xubnood ah isku raacsanahay taas waxa kale oo cadeynaynaa dhammaan waxgaradka aqoon-yahanada beesha Gaaljecel ee ku kala nool gudaha dalka iyo dibadiisaba isla markaana jecel midnimada beesha in xildhibaanada beesha oo la rabay in ay ka shaqeeyaan xoojinta midnimada soo jireenka ah ee beesha Gaaljecel in ay noqdeen kuwii sabab u noqday kala tagga beesha waxa sidoo kale aan cadeynaynaa in beesha Caloofi ay si gaar ah isugu tashan doonto wixii hadda ka dambeeya isku raacsanahay taasna Maxamed Nuur Cabdi Xuseen Somali Channel TV magaalada Jowhar